waa mar kale iyo barnaamijkeena habeenimo ee caawa dhacdooyinka kala duwan ee barnaamijkan caawa aynu ku falanqayn doono waxa kamid ah xaaladda gabadhii Soomaaliyeed ee saarneyd doomihii ay afduubteen ciidamada militariga ee maamulka Israa'iil gaar ahaan kuwooda badda iyo guud ahaan xaaladda dadkii doomahaasi saarnaa waxa dawladaha caalamiga ay ka yiraahdeen arrintaasi iyo kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin oo sheegtay in ay dalbanayaan in ay arkaan jadwal ku aadan goorta ay bixi doonaan ciidamada militariga ee magaalada Gaza ee haysta ee gudaha ugu jira kadibna xaaladda magaaladaasi la eegi doono qorshaha Trumpna hadii ay qaadanayaan hadii kale waxaan kale oo eegi doonaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa afka furtay oo waxa uu yiri Turkiga weligii ma aqbali doono in wadanka Suuriya la kala qaybiyo oo dawlado kala duwan laga dhigo Colombia waxay dalkeeda ka soo ciirisay dhammaan diblomaasiyiinta Israa'iil ee halka ayna ku sugnaa dagaaladii ugu dambeeyay ee Gaza dib jabkii gaaray ciidamada duulanka ku ah magaaladaasi waanu eegi doonaa hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir marka hore barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa gabadha Soomaaliyeed ee Shifa Cabdi oo kamid ahay dadkii saarnaa doonyo gargaar u siday marinka Gaza ayaa lagu soo waramayaa inay kamid ahayd dadkii ay xireen ciidamada badda ee maamulka Israa'iil sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan midowga Yurub iyo sidoo kale Finland gabadhan oo si joogto ah muuqaalo ugu soo gudbin jirtay baraheeda bulshada ayaa muuqaalkii ugu dambeeyay oo ay soo gelisay baraha bulshada waxay ku tiri hadii aad daawanayso muuqaalkan waxay ka dhigan tahay in ay ciidamada badda ee maamulka Israa'iil ay afduubteen oo ay kaxaysteen gudaha deegaanada maamulka ee Israa'iil aad ba arintan looga hadlayaa gabadhan oo kaliya ma ahane doonyahan gargaarka u siday magaaladaasi Gaza dadkii saarnaa ayaa gabi ahaanba ciidamadu ay u dhaceen ama ay u daateen si qasab ah ku soo qaxaysteen muuqaalo waxay muujinayaan dadkaas oo dabcan dhibaatooyin kala duwan ee loogu geysanayo halkan wali gabadha Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii saarnaa doontaasi wax waraa laga hayo kaliya waxa dad ugu wardambeysay markii ciidamadu ay halkaasi ay ka kaxaysteen oo gudaha deegaanada maamulka Israa'iil ay geysteen maraakiib dagaal oo Spain Turkiga iyo Talyaaniga ay dabcan soo direen oo galbinayay ayaa uga haray badda gudaheeda iyagoo doonaynin in ay gudaha deegaanada marinka Gaza ay u dhawaadaan maadaama halkaasi maraakiib Israa'iil ah ay joogaan aad baa loo cambaareynayaa Turkiga Spain iyo sidoo kale Talyaaniga waxa la leeyahay dadka idinka khiyaamay oo markii hore yiri waanu idinla soconaynaa markii dambana markii ay u dhawaadeen ayaad ka harteen haddaba aynu eegno dawladihii arintan ka hadlay waxa kamid ah dalka Turkiga waxa ay tiri Israa'iil waxay u dhaqmaysaa sida kooxaha argagixisada oo kale doomo gargaar waday oo u socday magaaladaasi ayay afduubteen oo dadkii saarnaana ay dabcan dhibaatooyin kala duwan ay u geysanayaan dawladihii kale ee ka hadlay waxa kamid ah dalka Talyaaniga oo ururka ugu weyn ee shaqaalaha wadankaasi uu sheegayo inay sameyn doonaan shaqo joojin maalinta Jimcaha ee berri si ay taageero ugu muujiyaan doonyahaasi gargaarka waday iyo waliba ciidamadaasi militariga ee badda ee iyagu qabsaday kooxda wax iska caabinta reer Yemen iyaguna durba way soo hadleen oo waxay yiraahdeen doomahaasi gargaarka waday ee ciidanka badda ay dabcan dhexda u galeen waa dhaqan argagixiso iyo sidoo kale dhaqan ay dabcan lagu go'doominayo dadkan rayidka ah inay gargaar ay helaan oo ay noolaadaan ayay yiraahdeen reer Hamas iyaguna qaybta hoose noogu reeb aragtidaada sidee baad u aragtaa gabadhaasi Soomaaliyeed iyo dadkii activistiyaasha ahaa ee doonyahaasi saarnaa ee la afduubtay xaaladoodu halkay ku sugan tahay ma dhibaato iyo jirdil baa loo geysan doonaa ma si wanaagsan ay u hayn doonaan ma la soo tarxeeli doonaa waxaad u aragto bal qaybta hoose noogula wadaag aragtidaada gabadhaasi Soomaaliyeedna sidee baad u aragtaa ma geesi baad ku tilmaami lahayd ma inay Soomaaliya matashay ma waxaad ku tilmaami lahayd gabar noocee ayaad ku tilmaami lahayd ogowse in gabadhan ay dabcan ay degan tahay wadanka Ingiriiska London ayna kamid ahay dadkii u ololeynayay in dagaalkan la soo afjaro dadkaasina gargaar la gaarsiiyo dhinaca kale aynu eegno kooxdan reer Falastiin ayaa ila wareedyo ka tirsan waxay la hadleen warbaahinta kala duwan ee dabcan Carabta siiba warbaahinta Sacuudiga ee Al-Hadath la yiraahdo waxayna u sheegeen in ay dabcan kooxdu ay u sheegeen Trump iyo maamulkiisu inay dalbanayaan waqti cayiman oo ciidamada Israa'iil ay uga baxayaan magaalada Gaza hadii Trump uu doonayo qorshihiisa nabadda in uu hirgalo haddaba ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil weli ma uusan ka jawaabin qorshaha
waa qorshaha waa uu aqbalay markii hore laakiin waqtiga cayiman ee kooxdan ay dalbanayso in magaaladeeda looga saaro Israa'iil dhammaan ciidamadoodu weli kama aysan hadlin marka kooxdu hadda waxay jawaab ka sugaysaa Trump waxaana laga sugayaa bal waqtiga ciidamada Israa'iil ay ka baxayaan wadankaasi Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza ay soo sheego Trump iyo maamulkiisu daawade miyay kula tahay in Israa'iil iyo Mareykanka ay caayimi doonaan waqtiga ciidamada militariga laga saari doono magaaladaasi Gaza si heshiiska haddii uu doonayo Trump inuu hirgalo dabcan uu sidaasi uu ku hirgalo qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uusan weligii ogolaan doonin kala qaybin wadanka Suuriya lagu sameeyo ama in dawlado kala duwan loo sameeyo wadankaasi Suuriya waana arin ay ka shaqeynayso hadda in Israa'iil waxaan ku howlanahay dhammaan dariiqyada diblomaasiyadeed si aan uga hortagno in dalka Suuriya iyo dhulkiisaba dawlado kala duwan loo sameeyo Erdogan waxa uu yiri in uu dabcan isagoo ka hadlayay furitaanka baarlamaanka waxa uu yiri wax walba oo dhaca wadanka Turkiga ma ogolaan doono in wadanka Suuriya dawlado kala duwan laga sameeyo haddaba waxa laga yaabaa in ay isweydiinaysid maxuu Turkiga u diidan yahay in Suuriya la kala googooyo oo dawlado kala duwan loo sameeyo Erdogan iyo dawladiisu waxa ay aaminsan yihiin haddii Suuriya dalal kala duwan loo kala googooyo ama maamul goboleedyo kadibna Israa'iil iyo Mareykanka yiraahdaan waanu idin aqoonsanaynaa dawladda madax bannaan ayaa tihiin taas waxay keenaysaa in Turkiga ay ku furmo dhowr furin dagaal oo midba dabcan uu la dagaalamo taas oo awoodda dalka Turkiga qaybinaysa waxaad soo ogaataa in Turkiga inuu hadda gacanta midig uu ku hayo dawladda wadanka Suuriya dhismaha ciidankeeda iyo horumarinteeda waxana uu dabcan uu sheegayaa mid kamid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee barigaasi in uu aaminsan yahay haddii wadanka Suuriya dalal kala duwan loo kala jarjaro taa macnaheedu inay ka dhigan tahay in Israa'iil meel gobol kasta ay u isticmaasho inay cid gaar ah kula dagaalanto tusaale ahaan haddii Kurdida ay dabcan dawlad ay u aqoonsadaan Kurdida waxa la oran karaa waxa la dagaalantaan Turkiga haddii kuwa kale oo xuduudda ku yaala Ciraaq la sameeyana waxa la dhihi karaa dawladda wadanka Ciraaq mashquuliya oo la dagaala kuwa kalena waxa la dhihi karaa Iran la dagaala marka Israa'iil qorshe noocaasi ay damacsan tahay waxaad ogaataa dalka Soomaaliya markaan contextkaasi ama arintaasi dalka Soomaaliya aan ku cabirno dalka Soomaaliya sida ogtihiin waa dawlad federaal ah waxaa jira maamulo dawladda federaalka Soomaaliya aysan wax xiriir ah la lahayn dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isku xirna marka waxaa jira dawlado dariska ah iyo kuwa kale oo dabcan maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya mid kasta si uun u taageeraysa taas oo marka dalkii Soomaaliya kala haysa oo inuu isku yimaado ay aad u adag tahay marka waxaas oo kale ayaa Turkiga uu ka baqayaa in Suuriya arin noocaas oo kale ay ka dhalato kadibna Turkiga uu halis u galo si kale aan ku fahamsiyo dalka Soomaaliya maadaama maamul goboleedyo ay u kala dabcan baxsan yahay miyaad aamini kartaa Ethiopia iyo sidoo kale Kenya in walwal weyn uu ku hayo deganaan la'aanta wadanka Soomaaliya iyo maamuladan kala gedisan waxaad ogaan kartaa sababta ay dabcan Kenya ay u taageerto Jubaland Ethiopiana ay dabcan u taageerto Gedo iyo sidoo kale koonfur galbeed waa wax la xiriira amnigeeda marka wadan kasta amnigiisa ayaa marka hore u horeeya maamul goboleedka xuduudda soo jira ayuu la shaqeynayaa si dabcan arrimaha xuduudda iyo sidoo kale amnigiisa ay uga la shaqeeyaan marka Turkiga ma doonayo in dalal wadankan Suuriya sida loo kala gogooyo oo lagu mashquuliyo maamul goboleed ama dawlad gaar ah la yiri oo xuduudda wadanka Turkiga saaran in la yiraahdo la shaqeeyo xagga amniga iyo sidoo kale xuduudaha waxa soo dhan marka waa fahmi kartaa meesha waxaan ka wada iyo sidoo kale falanqeyntaasi ugu dambeyntii aynu eegno marka dawladda wadanka Colombia ayaa dalkeeda waxay ka cerisay dhammaan diblomaasiyiinta Israa'iil waxaana la xiray safaaradii Israa'iil ee wadankaasi Colombia kadib markii laba muwaadin oo u dhashay wadanka Colombia ay ka mid noqdeen ku dhawaad 500 oo qof oo la socday doomo ay gacanta ku dhigeen ciidanka Israa'iil oo ku socday xeebaha magaalada Gaza si ay u jabiyaan go'doominta lagu hayo dadka Mareykanka Gaza sida laga soo xigtay go'aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Colombia waana tallaabadii ugu weyneed oo wadan uu qaado oo muwaadiniintiisu ay la socdaan doomahaasi ku socda
waati aan ka soo hadalnay in gabar Soomaaliyeed oo reer London ah ay kamid tahay dadka doomahaasi saaran ee Israa'iil ay xirtay 500 oo qof ayaa 50 doomood saaran waxayna ku sii jeedaan marinka Gaza dowladda Colombia waa dowladii ugu horeysay oo talaabo qaaday oo safaaradii Israa'iil xirtay diblomaasiyiinteedina soo ceeriyay miyay tani dhalin kartaa daawade aragtida nala wadaag miyay tani dhalin kartaa in 500 ee la socday doomahaasi dalalka ay ka soo jeedaan in talaabada Colombia mid lamid ah ay qaadi karaan oo diblomaasiyiinta Israa'iil ay soo ceerin doonaan iyo sidoo kale safaaradda Israa'iil ee dalalkooda ku yaalana ay xiri karaan Soomaaliya dabcan wax xiriir ah ma lahan ee Israa'iil safaarad kuma taalo diblomaasiyiin uma joogaan laakiin dowladaha kale ee dabcan dadkaasi saaran doomahaasi ama muwaadiniinta kale ee saaran doomahaasi dabcan miyay dalalkoodu talaabada lamid ah midda Colombia ay qaadi karaan aragtidaada qaybta hoose noogu reeb aad iyo aad baad u mahadsan tahay subscribe hay loobin mahadsanideen